بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد walaalayaal qof kastoo daawanayo kelmadda yaraan duubay daawanaya marka hore waxa weeyaan waa bishii rabadaanta waan idinku hambalyeynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala bishan inooga dhigo bil khayr iyo barako iyo bidaynu insha allah inkastoo waqtigaynu ku jirna uu iska adeeg yahay haddana insha allah waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaa nafteeda iyo walaalahaba uga baryaa inay bil barakaysan ay noo noqoto oo tii khayrkeeda aynu hello allah inooga dhigo meel kastoo joogtaanna waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta oo dadka muslimiintu isku salaamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah rabadaantani waa rabadaantii saddexaad ama afraad markii rabadaantu bilaabmatay insha allah aan duubayo silsilad amaba barnaamijyo daba socda oo insha allah intooda badan aan doonayo inay dadka walaalaha daawada cajiradan aan insha allah ku tawjiihino ama aan wax wanaagsan oo insha allah anfacaya rabadaantooda aan ugu sheegno haddii alla yidhaahdo waxaan kasoo hadlay rabadaanadii hore qisooyin uu nebigu ka sheekeyey calayhi salaatu wasalaam iyo qisooyin allah subxaanahu wa tacaala ka sheekeeyey sanadkan insha allah waxaan idinla wadaagi doonaa haddii alla yidhaahdo mawaadiic kale oo iyaguna silsilad isdaba socdaa insha allah ilaah waa ogintay noqon doonto laakiin waxaan rajeynaa inay maalin kasta sida qorshahayga iyo maalin kastoo bisha rabadaanta aan xabad idinla wadaago insha allah way iska koobnaan doonaano waan ogahay technologyga cajalada dhaadheer oo waqti dheer lama duubi karo saa darteed insha allah dadkuna ma daawan karaan waa waaqac saa darteed waxaan ku dadaalaya insha allah inay kelmado gaagaaban laakiin macnayaal idiin soo gudbinaya ay noqdaan haddii alla yidhaahdo sanadkan waxaan doortay mawduuc la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa kuwaas aan tusaale ka dhigano waa mawduuc insha allah aan kusoo qaadan doono asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin kastaba aan kusoo qaadan doono dhacdo iyaga iyo yacni ta noloshooda ka mida waxaana rajeynayaa qisadaas yaraan idinla wadaagaya inay macno badan oo nolosheena wax ka bedasho noqoto sababtaan usoo qaadanayana insha allah aan iminka idiin sheego walaal kasta ama walaal kastoo daawanaya haddaad isweydiiso waxa uu fududeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu jasiiradda carabta oo dhan bedelo jasiiradda carabta oo dhan uu bedelo muddo yar uu saameyntaynu aragnay ku yeesho inuu dad ilaahyo badan caabudi jiray uu ka dhigay inay hal ilaah caabudaan in dad maaragtay dulmigu uu ahaa yacni dhaqan uu ka dhigay inay cadaaladdu noqoto waxay dadka ugu yeedhayaan ummad baaba'sanoo aan bini aadmigu aqoonin inuu ka dhigo ummadaha ugu khayrka badan ummad aan qiimo lahayn inuu ummad qiimole ka dhigo jasiiradda carabto aan dadka ku noola aan ahayn dad qiimo leh inuu ka dhigo ilaahay subxana wa tacala sii kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxay tahay talow sababto dad badan way isweydiin karaan sababto maxay tahay jawaabtana way isku khilaafi karaan laakiin haddaad akhrido taariikhda diinteenna maaha taariikh la timid nebi maxamed oo kaliya sala allahu alay wasalam waa taariikh ka fog oo ilaa waqtigii sayidina aadam jirtay marka aad daraasiiso nolosha rusushoo dhan arrin muhiima kuu soo baxaysa arrinta kuu soo baxaysa waxa weeye nebiyadu laba arrimood bay wadi jireen laba arrimood bay la yimaadeen mid waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala risaaladiisa ay dadka gaarsiiyaan waa inay kuu yimaadaan oo ay kuu sheegaan risaalada nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuu nebigu yimaado oo deedna ilaahay ka gudbiya waa mid talabaada iyaduna aada u muhiimka waxa weeye waxay u haayeen tusaale waxa ay sheegayaan midna iga qaata labada arrimoodba waa muhiim laakiin ta dambe aada u sii muhiima hadduu qofku intuu wax sheego aanu isla markaa aanu dabaqaynin dadkii tusaale uma noqon karayo saa darteed ba haddaad qur-aanka akhridaan xitaa marka qoladii gaalada ahaayee maka ay ku yidhaahdeen waxa adiga maba ku rabnee ma rasuul bini aadmiya ma rabno ee waxaanu rabnaa rasuul oo malag ah ilahay wuxuu ku yidhi walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajulan haddaanu xitaa malag keeni lahayn horta qof bini aadmi aanu ka dhigi lahayn waayo qofka bini aadmigu wuxuu u baahan yahay qofu tusaale ka dhigto role model u noqdo saa darteed rusushu laba arrimood bay keeneen mid waxa weeyaan risaalada ilaahay bay dadka gaadhsiinayeenoo kitaab bay ilaahay ka keeneen ummadda gaadhsiinayaan ta labaadna waxay ahayd inay noqdaan tusaale u noqdaan mabaadiida ay fidinayaan inay ka run sheegaan saa darteed u fiirsada markii sayidina caasho la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee akhlaaqadiisa
waxay ku tiri kaana khuluquhu alqur'aan akhlaaqdiisu qur'aan bay ahayd maxay kuu sheegaysaa wuxuu aaminsanaa iyo wuxuu ahaa isku mid bay ahayd fikradda islaamkee maskaxdiisa ku degtay iyo rumayntu ilaahay rumeeyey iyo mabaadidu ilaahay ku soo dejiyey ee qur-aanka ku qoran isagaa tusaale u ahaa saa darteed in tusaale fiican la helaa waa muhiim dadkuna kuguma dayanayaan haddii aanad tusaale aanad noqonin rusushuna waxay ahaayeen tusaalayaasha lagu daydo saa darteed markaanu qur-aanka akhrino waxaad arkaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa isaga laftigiisa lagu odhan jiray rusushii kaa horreysay ku dayaa lagu odhan jiray u fiirso suurad waxaa jirta la yidhahdo suuratu ancaam la yidhaahdo aayadaha 3 marka laga soo bilaabay ilaa 6 ilaahay wuxuu kaga hadlay ilaa 16 rasul buu ka hadlay 16 rasul markuu ka soo hadlo mid kastaba magaciisa sheegay Ibraahim iyo Isxaaq iyo markuu soo sheegay wuxuu ku soo gabagabay ulaa'ika alladina hada Allahu fabihudahu muqtadi kuwaas baanu hanuunay tusaalahoodii adna dabagal adoo fiirso hanuunkii aanu hanuunay iyaga ku dayo waa nabiga calayhi salaatu wasalaam la faraya bal xitaa qur-aanka waxaad ku akhrinaysaa markaad akhrido meelo fara badan ba waxaanu ku aragnay iyadoo nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu dadka u sheego dabiyadii ka horreeyay isaga wadkur fil kitaab ibraahim badaksa innahu kaana sidiiqan nabiyya nabi ibraahim uga sheekay sifadiisu inuu rumoolaha baa la sheegay وحلو لي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا نبي موسى وقشاكي وحامد مخلص وضاعد وحلو لي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا والشيخ نبي إسماعيل وحامد رنت الشيخ بس وحلو لي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه markay noqoto yaad la xiriiraysaa yaad nacbanaysaa yaad jeclaanaysaa yaad u gargaaraysaa suuratu mumtaxina aayadda 4 ilaahay wuxuu leeyahay qad kaana lakum uswatun hasanatun fi ibraahim walladina waxa lagu leeyahay dadkii la jirtay ibraahim baa tusaale idinkana idin ah inta waxa dheer muslimiinta marka lala hadlayo الله سبحانه وتعالى وحده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وار إلهي وحده لقد كان لكم وحدين هذا وحدين كسقنات وين في صوماليا في لقد كان لكم في رسول الله رسولك إلهي نلشيسا أسوة حسنة تصالى إذن كسقنات صدرت يديو كسقنات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسولك اللي تشوغين ويلا فريسين جرين ويلا عنو جرين ويلا سفر جرين ميل كستي لا مري جرين دغالكay la gali jireen aqalkiisii la joogi jireen qayb noloshiisa kamid ahayd sadarteed baa wuxuu inoo sheegay nabiga calayhi salaam markuu asxaabtiisa sheegay wuxuu khayral quruni qarniga dadka century ama sanadka qarniga ugu khayrka badan waa qarnigaygii because asxaabtiisa nooled asxaabtiisuna isagii tusaale ka dhiganaya isagii ku dayanaya isagu wuxuu sameeyay soo gudbinaya axaadiista iyo siirada iyo waxa soo dhan iyaga inooga timid dhaqanka rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyaga inoo sheegay sadarteed waxaan leenahay tusaalaha wanaagsan waa muhiim dadkuna ma qaataan waxaad u sheegto waxa ay qaataan waxa ay ka arkaan muslimiinta maanta joogta wali mabaadiida islaamku way jirtaa quraanka waa quraankiisi axaadiistu waa axaadiistiisi bal maanta quraanku wuu qoran yahay dad badan baa qaybsan dad badan baa fasiraya dee mushkiladayna haysataa maxay tahay mushkiladayna haysataa way iska caddahay mushkiladayna haysataa waxay mabaadiidii inta badan ee muslimiintu way rumaysan tahay laakiin ummadaasi marka mabaadiida eegto noloshooda aad eegto way ka aradan yihiin way ka qaawan yihiin waxba kama haystaan taas waa mushkiladda ugu badan ee maanta in haysataa maaha yaraan waynu badannahay laakiin xun baynu nahay waxaa loo baahan yahay marka inaan dadka muslimiinta mar labaad xusuusino nabigu calayhi salaatu wasalaam ummad buu tarbiyadeeyey ummadaana tusaale u ahaa iyaguna innakay tusaale inoo yihiin maalmaha soo socda insha allah haddii alla yidhaahdo kelmadahayga gaagaaban waxaan mid kasta idinkula wadaagi doonaa dhacdooyin dadkaa u tarbiyadeeye ah iyo qisooyinkoodii insha allah waxaan rajaynaynaa in bisha ramadaanta haddii alla yidhaahdo ay noo noqoto saxay ama saad aynu insha allah bisha ramadaanta aynu heshano haddii alla yidhaahdo waan idin salaamaya insha allah waxaan idinkula tegayaa intaa insha allah waa inoo maalinta soo socota iyo barnaamij kale haddii alla yidhaahdo